السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dhalinyarada ku jirta youtube-ka Fahay Podcast soo dhawaada xalay waxaan ka sheekeynay hordhaca sida lagu guuleysto wareysiga shaqada waxay noo yaala dhammaan su'aalahan oo dhan inaynu insha Allah ka jawaabno caawa insha Allah waxaynu qaadan doonaa qaybta ugu horeysa oo insha Allah ah wareysi muxuu yahay horta si guud inaan u sharaxno diyaar garowga wareysiga shaqada sida loogu diyaar garoobo ayaynu ka hadli doonaa insha Allah saa ka aragtaan waa jawaabaha si guud wareysi marka aynu ka hadlayno waxa waaye muhiimada koowaad inaad qofka kale aad u gudbiso su'aal ma garanaysaa ama jawaab qofka ka hesho ama qof kuu soo gudbiyo su'aal adigana u celiso jawaab waaye haddaba su'aasheena koowaad saad ka aragtaan halka ku qoran waxa waaye diyaar garowga wareysiga shaqada si lagu diyaar garoobaa wareysiga shaqada tusaale ahaan oo kale maantay shaqa la soo bandhigay ama hay'ad baa shaqo soo bandhigtay waxaa rabtaa marka shaqadaasi inaad codsato shaqadii marka waad codsatay tusaale ahaan oo kale qayb waxaan kaga hadli doonaa muuqaaladeena dambe saddex muuqaal ugu dambeeya ayaynu kaga hadli doonaa qaababka loo qorto warqadaha iyo waxyaabahaas oo dhan laakiin maanta waxaanu ka hadlaynaa qof shaqadii la soo aqbalay oo interview lagu yeeray okay salaana kale waxa lagu dhahay maanta lagu soo wacay waxa lagu dhahay biri ayaa lagu ballamiyay waqtigaas marka waa inaad ogaataa marka waxyaabahaasi lagaaga baahan yahay oo shirkadan salaana kale waxa ay ku dhahday wareysigaas waa inaad u soo diyaar garowdaa it means waxa waaye waa inaad is soo diyaarisaa saas noqonaysaa maxaad soo diyaarinaysaa marka salaana kale waxaad soo diyaarinaysaa wareysigana isku soo diyaarinaysaa okay aynu guda galno marka gadaal baynu ka faahfaahin doonaa insha Allah marka waa inaad ogaataa si guud horta maxaa lagaaga baahan yahay markaad shaqadan raadinayso shaqadan aad qabanayso oo aad u tartamayso maxay u baahan tahay adiga maxaa lagaaga baahan yahay inaad soo baartaa taariikhda la aasaasay shirkadan maamulaha cidda leh shirkadan maxay danaysaa inta badan oo ay xoog saaraysaa maxay tahay yani baahida shirkadani ay qabtahay maxay tahay maxaas ku soo kordhin karaysaa maxaad yani la hortagaysaa waaye qorshaheedu muxuu yahay marka shirkadan maxay hiigsanaysaa ganacsigeedu muxuu qabtaa heerkee gaarsiisan yahay dad noocay u baahan tahay gobolkee ku badan tahay yani oo su'aalo noocaas oo kala isweydiisaa su'aalahaas oo dhan waxay ka saacidayaan in markii lagu weydiiyo su'aalaha noocan oo kala ah oo lagu yiraahdo shirkadeeda maxaa ka taqaanaa shirkadan hore ma ula socotay shirkadan social media-heeda ma kala socotaa yaa leh shirkadan maamulaha magaciisa noo sheeg waa su'aalo aad u kooban laakiin haddii aad garan weydo lagu arkayo inaad tahay qof aan badanaynayn ama wax xog aan ka haynin markaas shirkadan maxaa ka ogtahay tusaale lagu weydiiyo qorshahayaga maxaa ka taqaanaa maxaa ka ogtahay shirkada waa su'aal aad u muhiim ah runtii marka jawaabahoodana waa inaad adiga aad qorataa marka shirkada aad tartamayso qortaa magaceeda xogteeda waxeeda dhammaystiran waa inaad qortaa waan gartay wayna marka tusaale ahaan oo kale steelkaaga oo kale tusaale ahaan oo kale sawiraanta gadaal baynu ka arki doonaa oo sida halkaas aynu ugu tegi doonaa laakiin si guud horta aynu dulmar steelka oo kale qofku inuu labistaayo waxay ka qayb qaadanaysaa qofka kalsoonidiisa iyo waxay ka qayb qaadanaysaa dadka ku wareysanaya in ay kalsooni geliso marka steelku ama qofku inuu labisto waa wax aad ugu muhiim ah nolosha qaybna ka ah kalsoonida dhan walbaba qofka noloshiisa okay salahan oo kale inaad si guud waxa weeyaan sideentan nafartay adigu si guud isku soo diyaariso cadaygaaga oo kale iyo barafuunkaaga inaad cunto soo cunto salahan oo kale waayo salahan oo kale hadda soo labisanin oo salahan oo dharkii hurdada ay kaga soo kacday meesha ku soo aado yani isla aminkiiba psychology ahaan dadkan ku wareysanaya maxay ku arkayaan yani qof waxay ku arkayaan liita oo aanba shaqo diyaar u ahayn ba ku arkay Soomaa
cadayga oo kale oo diinteena ayna faraysa inaad dee waxa weeyaan aad cadayato barfuunkaaga oo kale inaad waxa weeyaan iscarfiso diinteena ayna faraysa cuntada oo kale waxa weeye dee haddaad cunto fiican soo cunin waxay noqonaysaa markaasi adoo waqti badan meesha jooga inaad markaasi jawaabo ku habboon aad bixin weyso waa inaad markaasi ilaalisaa tusaalahaan oo kale waqtiga lagu belamiyey oo 15 daqiiqo ka hor oo kale waa inaad tagtaa marka waa inaad sii diyaarsataa koobigaaga cosigaaga shahaadooyinkaaga waxaaga dhan qalinkaaga buuggaaga oo kale markii lagu wareysanayo oo kale waa inaad notes qori kartaa numberkaaga oo kale waa inaad xirtaa waa inaadan xanje iska roogin waxa weeye soo quraacto xanje aadan soo cunin oo kale meesha aadan la imaanin waxa ugu daranna waxay tahay tusaalahaan oo kale haddii aad albaabka aad ka soo gasho tusaalahaan oo kale ama waardiyaha aad soo dhaafto ama dee albaabka aad ka soo gasho wax kasta oo markaas aad samaynayso ama dhaqdhaqaaq kasta oo markaas samaynayso it means waxa waaye interviewga saas ugu jirtaa waaye albaabka haddaa ka soo gasho tusaalahaan oo kale waad baxday oo waxa ka baxday waraysiga baa ka baxday markii lagula yeeshay qofkan waraysiga kula yeeshay wuxuu imaanayaa waardiyaashii dadka meelaha joogjoog u imaanayaa wuxuu ku leeyahay tusaalahaan kale hebel baan waraysanay bal iiga waran sidee buu ahaa maantay qofkaas sidee buu kula ahaa يعني سكرجهم بو قفكاس waxa dhaaya deema qof wanaagsan buu ahaa si fiican buu islaamay markuu soo galay qof dhal cadeynay oo ahaa qof furan buu ahaa qof waxa weeye fahamisa marka inaad meelahaas oo kale aad isaga fiirisaa marka lagu wareysanayo kale waxa aad u muhiim ah iyadana waxa ay tahay gacmaha oo kale inaad salaano kale gacmaha ka hadasho oo adeegsato gacmahaaga faraha aad ragaajiso oo ka hadasho salaano kale qofka indhihiisa aad eegto hadii koox ku wareysanaysan qof walba indhihiisa aad eegto taas waxay ka saacideynaysaa inaad dadkii markaas waxa weeye isla socotaanin oo inaad tilmaantaa oo inaad salaano sulkaaga gacmahaaga oo inaad yani hadba hadalka dhehayso waa inaad tilmaan aad bixisaa loo cadeynta kamid ah waa inaad dadkii salaamtaa waxa weeyaan markaad albaab ka soo gasho oo waxa weeye haddaad gabar tahay waxa weeye gabdhihii xabad galaysaa si naxariis leh aad u salaantaa wiil haddaa tahay wiilasha oo kale waa inaad si naxariis leh u salaantaa si guud dadka oo dhan waa inaad waxa weeyaan si kalgacayl naxariis ku jirta furfuran qalbi furan aad u salaantaa haddaad iska soo gasho adoo aamusan oo kursi iska fadhiisato oo caajislo aad tahay hurdadii xalay si fiican aad u seexano waxa weeyaan yani adigoo dhan dee qof kale aad tahay waa dareemi karaysaa adiguba marka okay haddaba sawiraanta aan imaano sida aad waxa weeyaan aad ka aragtaanin sawiraanta waa kuwaasa waa kaasa qofkii oo waxa weeyaan indhihiisa si fiican qofka u eegaya gabadhii oo waxa weeyaan gabadha kale iyaduna markaas waxa weeyaan salaamaysa tanna waa ujeedaan waxa waaye qofkii oo shaqadii yimi salaanka soo soo labistay waa ujeedaa sama salaanka dashaati oo kale korbu waxa weeyaan oo u furtay koorka hooska mariyay okiyaalo kor saartay dharka weyn buu soo xirtay yani halkaas waxa ka dareemaysaa sawirkaasi macnaha qofkaasi nuusan ku haboonay in shaqadaas wado gabadhii oo kale waa tan iyaduna oo qaybta afraad ah gabadh muslimada xijaaban gabadhii kala salaamaysa gacmaha marka ka hadlayso salaano kale waa kana oo inaad si toos ah qofka wax u eegtaa oo gacmaha sidaas waxa weeyaan aad u adeegsataa koox markay ku wareysanayso ayaduna waxa weey waa kana oo waxa weey afartii qof halka fadhiya oo la wareysanayay qofkana waa kana markaas waxa weeyaan qofku inaad indhaha la raacdaa oo si toos ah aad wareysataa oo wax walba markaasi mashquulina iska xirtaa waxa kale ku xiga waxay tahay note-kaaga inaad soo qaadato oo buuggaaga warqadaada qof diyaarsan aad tahay oo waxyaabaha muhiimka ah oo markaas ama shirkadda lagaga sheegi doono ama adigaan khoseeya si markaasi aad ugu qorato waaya inta waxaan filayaa inaynu isla fahmno waan gartay qaybta saddexaad oo nimaano khaladaadka qofka badanaa uu galo naxdinta inaad naxdo oo dhahdo waraysi baa lagu yeelanayaa waraysi ku guuleysan doontaa yani inaad noqoto qof naxsan naxdintaasna wax kale ma aha waxa keenaysa waxa weeyaan maadaama markii kugu horeysa tahay waraysiga bulshada oo qofkii ku wareysanayo su'aalo shakhsiyan oo lagu weydiinayo waxyaabahaas dhan keenay marka waxaas dhan waa inaad iska saartaa oo noqotaa qof diyaarsan su'aalaha iyo jawaabahana